kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh warfadhi media oo mar kale iyo barnaamijkeeni falanqaynta iyo tunida wararkii ugu dambeeyay ee diblomaasiyadda wararkii dhinacaasi ayaan mar walba ku qaada dhigi jirnay wararka warbixinaha iyo wacalaha adduunka oo dhan anagoo kala walba afka hooyo ku soo ururina wararka isla markaana la wadaagna daawadayaasheena Soomaaliyeed ee ayaguna nagala socda markaasi kuna xiran inay wax badan daneenaya inay ka ogaadaan caalamka iyo sida uu jahaysanayo ayagoo koob ka dambaysa wararka caalamka ay isgedgedinayaan duniduna ay ku sii durkayso isku birtumasho xoogan iyo kala duwanaansho dano la kala eriyanayo iyo kala qaqobnaan xoogan dal walbana uu doonayo inuu dal kale farageliyo isla markaana uu dhibaato xoogan u geysto qodobada aad ku daawan doontaan caawa ama maanta wararkeena waxa ugu waaweyn dawladda dalkaasi Ruushka oo tijaabisay gantaalkii ama hubkii nuclear-ka ay dhawaan soo bandhigtay isla markaana u rogtay oo ka dhigtay mid wax lagu daqeyn karo soo bandhigtay diyaaradihii qaadi lahaa Mareykanka oo asaguna ka digay in Ruushku uusan waqtiga iskaga dhumin inuu soo gaaro waxa uu yeeray awoodda militariga dalkaasi dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga oo ayaguna hadallo kulkulay isdhaafsaday Shiinuhuna wuxuu ku dhawaaqay in dagaalka uu Mareykanku haatan uu laba jibaaray ee dhinaca markaasi birta iyo waliba naxaasta uusan faa'iido u keeni doonin labada dalba China waxay sheegtay inay iska daafici doonto weerarada dhinaca ganacsiga iyo dagaalka qabow ee Mareykanku go'aansaday CIA ama hay'adda CIA Mareykankuna waxay sheegaysaa inay fahansan yihiin khatarta ka dhalan karta kulan la yeesho Kim Jong Un qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ku maqli doontaan wararkeena dabcan oo xiiso leh waa maalinimo Isniin ah 12 bishii 3aad 2018 kol kale barnaamijkeena falqaynta tunida madaxa diinta iyo awqaafta ee u qaabilsan dalkaasi Turkiga ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay hadallada lagu yiraahdo ama loo jeediyo haweenka islaamka madaxa hay'adda diinta iyo awqaafta u qaabilsan dalkaasi Turkiga la yiraahdo Diyanat Ali Arbas ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo culimada islaamka inay hadallada ay haweenka islaamka ay ku tilmaamayaan ay wanaajiyaan isla markaana luqadda ay dumarka markaasi ay doonayaan inay ku sifeeyaan ama kolka laga hadlayo arrimaha haweenka ay si wanaagsan oo markaasi sharaf leh ay uga hadlaan Ali Arbas oo shir u qabtay inta badan culimada diinka dalkaasi ayaa wuxuu ka hadlayay shirkaasi oo ka dhacay magaalada ku taala gobolka koonfur bari dalkaasi ee leedahay Hakari wuxuuna Mr Arbas uu sheegay in caalamka islaamka ay haysato dhibaato xoogan isla markaana dunida reer galbeedka ay doonayso inay ka duufsadaan haweenka oo ay ugu sheekeeyaan sheekooyin akhyaali ah oo ay ka mid tahay inaan islaamku ilaalin cirdigooda iyo inuusan sharfin haweenka wuxuu tusaalayaal waaweyn u soo qaatay habkii uu markaasi subanuhu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu la dhaqmi jiray haweenka iyo sidii wanaagsaneed ee macruufka ahayd ee dumarka wala hadli jiray wuxuuna sheegay in asagoo ka jawaabayay hadal dhawaan ka soo yeeray mid ka mid ah xubnaha la aaminsan yahay in ay aad asal raaca u yihiin oo ka hadlayay barta YouTube-ka oo la yiraahdo ama oo leh hay'adda la yiraahdo Social Fabric Foundation Nuruddin Ildias kaasoo sheegay in ay dumarku tahay inay Ilaahay ku shukriyaan maadaama Ilaahay ragga u ogolaaday buuri inay ciqaabaan isla markaana raggu iska nastaan ayuu sheegay in ay tahay taas oo khalad wuxuu sheegay inaysan soo aroorin ayuu yiri in dumarka la jirdilo isla markaana lagu sameeyo xadgudub wuxuu sidoo kale ugu baaqay haweenka islaamku in ay ku faanaan mar walba diintooda isla markaana ay ilaashadaan buuri xijaabkooda aysan dhig jala qusiin buuri kooxaha wax qarbuda ee ayagu cadaadista xoogan ee aan ahayn buuri wax islaamku ina farayo ama ina barayo ayagu kula dhaqma haweenka Mr Arbas wuxuu sidoo kale sheegay inuu soo dhaweynayo hadalkii madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee 8 bisha March ee maalinta haweenka dunida loo asteeyay uu ka jeediyay magaalada Ankara ee ahayd in haweenka la siiyo door weyn ay bulshada markaasi kaga mid noqdaan iyo in haweenka loo ogolaado in ay markaasi wax maamulaan sidoo kalena ugu baaqay dunida iyo culimada dalkaasi Turkiga waa madaxweyne Erdogan in haweenka dalkaasi Turkiga aan la garaacin oo laga ilaaliyo haweenka in la jirdilo sidoo kalena haweenkuna ayaguna ay sharfaan isagooda buuli uu taasoo tahay uu tan diintu ina faraso wuxuuna sheegay in ixtiraamka qoyska ay ku dhisan tahay buuli jacayl labada qof ka kala dhaxdhasha iyo in la xoojiyo buuli dhaqanka islaamka oo dumarka ay si weyn loo jeclaysiyo dhaqankooda balse aan la jeclaysiin buu dhaqanka reer galbeedka isla markaana aan loo gacan hadin ayuu sheegay Ali Arbas oo markaasi khudbada u jeedinayay dadka islaamka oo dhan fariin ku socotay gaar ahaan dadka reer Turkiga oo markaasi uu si weyn uga waaniyay dumarka inaysan israaxraacin ayaguna waxa ugu yeeray gacan haadiska reer galbeedka halka uu ugu baaqay bulshada islaamkana inay si weyn u ixtiraamaan haweenkooda iyo gabdhahooda oo ay u sheegay inay inta badan ay diinta islaamka xuquuq xal ay siisay halka nagala socotaana waa horfadhi media iyo wararkii ugu dambeeyay tunida diyaarad markaasi ay saarnaayeen 11 ruux
oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa waxaa la sheegay inay ku dhacday ama ku burburtay galbeedka dalkaasi Iran sida ay ku soo waramayso warbaahinta dalkaasi Iran gaar ahaan wakaalada wararka u faafisa dawladda Islaamiga ah ee Iran ilaa isna diyaaradan khaaska ahayd ayaa ku burburtay meel u dhow magaalada Shahrul Kurdi oo Kood oo ku taala ama Shahrul Kood la yiraahdo ku taala gobolka galbeedka Iran ku yaala la yiraahdo Jarmahal Bakhtariya afayaan u hadlay shaqaalaha gargaarka degdega ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaraddu ay ku dhacday deegaan buuraley ah kadibna uu dab qabsaday waxaana lagu soo waramayaa inay ka timid balay dalka isku taga Imaaraadka Carabta kuna sii jeeday magaalada Istanbul markii uu shilku haleelay diyaaraddaasi waxaan xaqiijin karnaa balay in diyaaradda Turkish private jet ka ahayd ama diyaaradda gaarka ahayd ee dalkaasi Turkiga markii ay mareysay hawadeena laga waayay balay raadaarka oo ay ku burburtay bay yiraahdeen meel u dhow Shahrul Kood waxaana sidaas yiri afayeenka ururka dulmaadyada madaniga ah ee dalkaasi Iran isagoo la hadlayay telefishinka dalkaasi Reza Jafar Zadi oo ah madaxa ururkaas ayaa sheegay in diyaaraddu ay sideed rakaab ah iyo 3 kamid ah shaqaalaha diyaaradda waxaa lahaaba leeyahay ganacsade u dhashay dalkaasi Turkiga oo lagu magacaabo Hussein Basaran gabadhiisa iyo 7 kamid ah saaxiibadeeda ayaa saarnaa waxayna ka soo laabteen xaflad ka dhacaysay Dubai markii ay burburtay sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Turkiga madaxa bisha cas Turkiga ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday shirkaasi bishii la soo dhaafay diyaarad 66 ruux ayaa ku dhacday buuraha Zagrus ee dalkaasi Iran kuwaas oo sidoo kale ku yaala galbeedka dalkaasi iyadoo markaasi diyaaradda ay markaasi cimilada xumaatay ee hareysay diyaaradda ayaa la sheegay in xaaladeedu ay fiicnayd isla markaana ay sameysay shirkad dhiganayo dalka Canada waxaana haatan la baarayaa cilada iyo waliba sababta ay diyaaradda dabka u qabsaday iyadoo wali aysan jirin bal shaki ku saabsan in ay fal wax kharbudad ah ay arinta ku lug lahaayeen halka nagala socotaana waa wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh oo aad kol walba aynu ku qaada dhigi jirnay wararka wacaalaha iyo warbixinaha dhinacaasi caalamka aynu mar walba ku eegno daawadayaal haatana bal dalkaasi Ruushka iyo waliba warar ku saabsan madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horeysay wuxuu wareysi uu siiyay TV-ga la yiraahdo NBC ee dalkaasi Mareykanka ka soo baxa oo u sheegay in uusan wax ka ogeyn faragelinta xooggan ee dawladda dalkaasi Mareykanka lagu eedeynayo inay ku hayso baalay dalka ay ku sameysay doorashadii dalkaasi Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 Mr Putin oo wareysi siinayay TV-ga NBC ayaa wuxuu sheegay in uusan ogeyn ama uusan amrin asagoo isla markaana uusan awoodda siin buuli dadkii kharbaday ama dhaxgalay buuli doorashadii dalkaasi sanadkii 2016 ka dhacday wuxuuna sheegay in laga yaabo in ay yihiin buuli dadka Ruushka ah wuxuu yiri iyagu haysta buuli diinta markaasi wuxuu ugu yeeray Yahuud ama Yahuud ama Ruushka Yahuudiyaanka taasoo ka cadhaysay xubno badan oo kamid ah aqalada Mareykanka oo Yahuuda kuwaas oo ku tilmaamay hadalka madaxweyne Putin inuu doonayo inuu Yahuuda ku kiciyo dadka Mr Putin oo wareysi markaasi u eka in gacmaha la soo tagay ay la yeelatay gabadh markaasi qaabilsan barnaamijyada adag ee loo yaqaan markaasi hard talkska oo leeyahay Meghan Kelly oo iyadu u safartay magaalada Moscow si ay u soo wareysato Mr Putin oo ay hadda ka horna ku wareystay shirkii G8 ee ka dhacay magaalada Pittsburgh bishii June ee sanadkii hore ayaa haatan waxay la yeelatay wareysigii ugu adka abid waxay ku qaaday su'aalo u eka weerar culus oo ay ku difaacisay dalka Mareykanka gabadhaasi ayadoo sheegtay inay ka doonayso Mr Putin inuu cadeeyo faragelinta waxa uu ugu hayo dalkooda sida ay sheegtay Miss Meghan waxa ay jawaabaha culus ee Mr Putin ay ka helaysay ahaayeen inuu in badan ku tilmaamay inaysan asaga waxba ka khuseenin wuxuu yiri maxaa aniga iga khuseeya maxaa iga 15 in Mareykanka doorashadiisa la farageliyay anigu ma amrin dadka farageliyay anaga nooma shaqeeyaan dawladdeeda kama tirsanayn waxaanu leenahay sharaf Mareykanka ayaa lagu yaqaanaa faragelinta noocaas oo kala waxay farageliyaan in badan dalkanada waxayna dhibaato ku hayaan amniga qaranka dalka iyaga balse anagu taa ma sameeyno waxaan u maleynayaa dadkaasi inay yihiin dad Ruushiyaan oo haysta buuli diinta markaasi Jewishka ama diinta loo yaqaan buuli Yahuuda oo markaasi jooga buuli Mareykan waxay kala noqon karaan buuli dad kale oo iska madax banaan sidoo kale waxay noqon karaan buuli dad u dhashay buuli Ukraine ama kuwa nooca loo yaqaan buuli Tatariska sidoo kale wuxuu sheegay in laga yaabo xataa inay haystaan kaliya waxa uu ugu yeeray dhalashada dalkaasi oo ay yihiin buuli kuwa laba dhalasho haysto dal kale ka socda sidoo kale wuxuu tilmaamay in faragelinta ka dhacday Faransiiska iyo Jarmalka ay sidoo kale taasoo kala ahayd waxa hadaladiisa ka muuqatay isla weyne xoogan iyo asagoo markaasi yasay su'aalaha gabadhu ay weydiinayso in kasta ay hayaan kuwa kulul oo aan la isku aabayeen Mr Putin ayaa wuxuu ka digay in
haatan aysan ahayn buu yiri xilligii dowladda dalkaasi Mareykanku ay isku maaweeli lahayd ama dadkeeda ay ku maaweeli lahayd cadaawadda Ruushka wuxuuna sheegay in Mareykanku ayagu yihiin kuwa ku jira buu yiri tartanka dhinaca waxa uu ugu yeeray waalida Senator Richard Blumenthal oo laga soo doorto senatorka aqalka sare ee dalkaasi ku jira loo soo doorto xisbiga dimuqraadiga iyo kale ee Congress-ka ku jira xildhibaanka kale ee Congress-ka ku jira leeyahay Don Pryor ayaa labaduba si weyn waxay ugu eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi Ruushka inuu sameeyay waxay ugu yeedheen gaf ka dhana Yuhuudda Mareykanka isla markaana uu doonayo in carqalad xooggan ay la kulmaan Yuhuudda Mareykanka waxayna u sheegeen journalka ka soo baxa dalkaasi Israa'iil la yiraahdo Haaretz in arintaas ay tahay iska horkeen bulshada Mareykanka oo mar kale doonayo Mr Putin inuu dab kala dhaxdhigo daawadayaal halkeed nagala socotaan waa Hurfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda ee caalamka waxaan mar walba idin wadaagnaa daawadayaasha qiimaha leh warar iyo warbixino waxaan ku mahadsantiin sidaad noo daawanaysaan waxaan jecelahay inaad raacdaan oo subscribe taabataan isla markaana aad share gareysaan la wadaagtaan asxaabtiina kale wararka iyo wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka anaguna mar walba aan meelay jiraan wararka idinkeena hadii alla qadaro daawadayaal waxaan mar walba idin ballan qaadanaa in wararku ay noqdaan kuwa talentaali ah oo si xoogan markaasi aan u baaritaano ugu sameeyno isla markaana idin soo hordhigno meel kasta ha yaaleen hatanna bal dalkaasi Mareykanka iyo waliba wararkii ku saabsanaa agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka waaxda markaasi arrimaha dibadda u qaabilsanay CIA-da ayaa ninka la yiraahdo Mike Pompeo ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Mr Kim Jong Un wuxuuna sheegay in madaxweynuhu uu ka warhayo khatar kasta oo ka dhalan karta wada hadalkaas iyo sidoo ku dambeeyo Trump uma sameeyay buu arintan riwaayad ahaan wuxuuna halkaas u tagayaa inuu xaliyo dhibaato weyn madaxa sirdoonka arrimaha ama CIA-da Mareykanka Mr Pompeo ayaa sidaas sheegay madaxweynaha ayaa sheegay in kulanka uu dhalin karo wuxuu ugu yeeray heshiis weyn oo caalamka ka dhaca balse waxa laga digayaa in hadii wada hadalladu qabsoomaan si aan wanaagsaneyn ay taas sababi karto inay uga sidarto xiriirka labada dal iyo sidii uu markii horeba ahaa waxa sidoo kale laga digayaa in wax kasta oo carqalad kasta oo ka yimaado wada hadalladaasi ay xaaladda faraha ka karaan isla markaana Mr Trump oo asagu aan jeclayn qoorsi loola yimaado arintiisu ay ku damay karto mid culus wali ma dhicin in madaxweynaha Mareykanka uu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi tan iyo intay dalkaasi isfarasaareen sanawaadkii 1900 iyo kontomaadkii Trump ayaa lagu waramayaa inuu si degdeg ah markii horeba u aqbalay codsiga markii ay soo gudbiyeen ergada ka socotay Kuuriyada Koonfureed ee Khamiistii joogay magaalada Washington ee xarunta dalkaasi Mareykanka kulan gaar ah la qaabtay wadaxaajoodyo hubka dhigis ah oo la isku dayay ayaa horay u fashilmay taasoo waqooyiga Kuuriya lagu doonayay in ay dhigto ama dhinto hubkeeda nuclear-ka haatan waxay ka digaysaa waqooyigu inay arintaasi aysan miiska wada ooli karin Mareykanka ayaa haatan siyaasiyiintu ku kala qaybsan yihiin qadiyada xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo Chad haatan ku sugan ayaa haatan sheegay inuu aad uga walaacsan yahay degdegga Mr Trump arinta ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence horay wuxuu sheegay inay wada hadalada shuruud ku xidhayaan hase yeeshee Mr Trump ayaa Twitter Trabela ku taageeraya wada hadalada Mr Pompeo wuxuu haatan sheegay in khatar weyn ku haaran tahay markaasi kulan wada hadaladaas iyo sida ay noqon doonaan daawadayaasha qiimaha leh mar baynu falanqeyn doonaa arinta wada hadalada iyo waxa laga filayay qaybta labaad ee wararka iyo hamoogan daqiiqadeyn